halkani waa magaalada Muqdisho waxaana ay tahay mid sameynaysa koritaanka magaalooyinka caalamka. Shirkadaha ugu waaweyn ee dunida ayaa kuwa xarumo ka samaystay magaalada Muqdisho 30 sano kadib. Shirkadaha ugu waaweyn ee soo saara gaadiidka caalamka ayaa kuwa markii ugu horeysay xarumo ku yeeshay magaalada Muqdisho iyagoo si toos ah u bixinaya adeegyo la mid ah xarumaha ugu waaweyn ee shirkadana ay ku leedahay caalamka oo dhan. waxaana gaadiidka goobtan yaala ay yihiin kuwa aan hore loo isticmaalin isla markaasina ah 0 kilomitir. baabuurta halkan yaala dhammaantood waa brand new waxaana ay yihiin kuwa la talaabsanaya tiknoolajiyadda casriga isla markaasina ka badbaadinaya shilal badan maadaama ay ku tusayaan hareerahaaga iyo waxa ku dhow taasina ay ka badbaadinayso shil gasho. dukaanada ugu waaweyn ee dharka soo saara noocyadiisa kala duwan ayaa 30 sano kadib waxay xarumo ku yeesheen magaalada Muqdisho iyadoo taasi ka yareynaysa waqti iyo lacag badan oo kaaga bixi lahaa iibsiga dhar tayadoodu sareyso oo yaala wadamada caalamka balse haatan waxaad si fudud uga helaysaa magaalada dhar tayadoodu sareyso kadib imaanshihii shirkaddan. shirkadda ugu weyn caalamka ee soo saarta noocyada kala duwan ee cabitaanka ayaa mid warshad weyn ku leh magaalada Muqdisho taasi oo soo saarta kumanaan kun oo cabitaan bil walba waxaana ay tan shaqo abuur weyn u samaysay kumanaan ka mid ah dhalinyarada Soomaalida waxaana intaad warshadani joogto la yaab kugu noqonaysa sida loo ilaaliyay deegaanka waxaana boqolaal ka mid ah noocyada malayga ama kalluunku uu yahay mid lagu dhaxtar yeelo gudaha warshadani maadaama warshadu ay qayb ka tahay ilaalinta deegaanka. maqaayadaha caalamiga ah ee cuntada ayaa iyaguna xarumo kala duwan ku leh magaalada Muqdisho waxaana ay yihiin kuwa ku yaala suuqyada magaalada Dubai iyo caalamka intiisa kale tanana waa mid kale oo ku tusaysa isbeddelka degdega ah ee magaalada. qaar ka mid ah warshadaha ugu horeeya ee soo saara alaabaha kala duwan ee guryaha ayaa iyaguna qayb ka noqonaya shirkadaha caalamiga ah ee imanaya magaalada Muqdisho waxaana ay yihiin kuwa si weyn loo qaabeeyay lala mid noqonaya kuwa caalamka. sidoo kale shirkadaha ugu waaweyn ee agabka tiknoolajiyadda caalamka ayaa iyaguna xarumo ku yeeshay Muqdisho waxaana aad dareemaysaa in imaanshaha shirkadaha noocan oo kale ah ay kor u qaadayso tayada qalabka waxaana ay fududeynaysaa isticmaalka tiknoolajiyadda casriga ah si la mid ah dalalka caalamka. maqaayadaha ugu caansan ee dunida ee shaaha iyo bunka iyo noocyada gaarka ah ee cuntada ayaa iyaguna ka mid ah shirkadaha caalamiga ah ee qaybaha ku yeeshay magaalada Muqdisho waxaana ay tani fursad siisay dhalinyarada magaalada oo ay noqotay goobo casri ah oo ay ku kulmaan. shirkadaha ugu caansan ee soo saara dharka ragga gaar ahaan suudhadhka ayaa xarumo ku yeeshay magaalada Muqdisho si ay qayb uga qaataan horumarka xawliga ah ee Muqdisho waxaana ay yihiin kuwa aad ka helayso dhar tayo leh si la mid ah dukaanada ay ku leeyihiin caalamka. shirkadda labaad ee ugu weyn caalamka isla markaasina si weyn loo adeegsado isticmaalka noocyada kala duwan ee agabkeeda ayaa iyaduna xarumo ku yeelatay Muqdisho waxaana ay yihiin kuwa aad ka helayso adeegyada shirkaddani xarumaha ay ku leedahay New York iyo Dubai si la mid ah sidaad uga helayso Muqdisho. tanina waa guul weyn marka la eego horumarka dhanka tiknoolajiyadda oo si weyn uga socda caalamka Muqdishona ay qayb weyn ka qaadanayso.
daawade muuqaalkani wuxuu ahaa mid aan idinku tusaayay horumarka ka socda magaalada Muqdisho iyo sida shirkadaha caalamiga ay 30 sano kadib u imanayaan magaalada Muqdisho ku xidhnaw Ayub Show lana soco muuqaal